كم إذا عشان يتمكن عتب كتبنات أو ها جدية مدح بنان يعتب كلا بيتبنات أو أجارها دولة حمناها كدولة فدرالك مركي هرسو تشيدي ما هيجا يعني من هرك إنه وحي كل إحدى فنايين عتب بدي أتكدودين كارهان جدية مدح بنان وحنو قيبين إن جدي والبا لجود السوء عتب كأي خصيصه sidoo kale cutubka 12aad oo hore uga koobnaa laba qodob oo kaliya oo ka hadlayay dawlad goboleedada waxaanu soo jeedinahay iyagii hore lagu soo dhaxdaray cutubkii shanaad iyadoo laga dhigay madax gaar ah oo ahaa madax afraad waana ka doodeen waana la qabtay aragtiyihiinii hase yeeshee talooyinkii iyo aragtiyihii baarlamaanka iyo soo jeedimihii aad noo soo jeediseen awgood waxaan go'aansanay in cutubkaasi lagu celiyo meeshiisii waxaanu hadda ka kooban yahay 3 qodob waa cutubka 12aad markii hore 2 qodob ka koobnaa waxaan soo dhexgelinay cutubka shanaad haddana waxaanu ku celinay cutubkiisii 12aad wuxuuna ka kooban yahay 3 qodob oo hadda ah 164 165 iyo 166 oo kala ah dastuurka dawlad goboleedyada golaha wakiilada dawlad goboleedyada iyo golaha fulinta dawlad goboleedyada saddexda qodob buu sida nuxurkooda taasoo hadda soo jeedimaha iyaga ka dhigaysa 15 cutub sababtoo ah xildhibaanada qaar baa waxay dhaheen waxaan ka doodaynay 13 ee sidee ayay ku noqotay 15 waxaan inta ku iftiimiyay sida ay ku noqotay 15 mudanayaal sida uu dhigayo haddaba habraaco ee ansixinta wax ka beddelka dastuurka gaar ahaan qodobka shanaad ee ka hadlaya marxaladda saddexaad ee wax ka beddelka dastuurka cutub kasta qodob kasta oo doodiisu soo ilaato ka hor inta aan loo gudbin ansixinta kama dambaysta wuxuu u baahan yahay in lagu raseeyo aqlabiyad 50% plus 1 marka codeynteenu dhowr qabeed baa u dhacaysaa waxaad iman doontaa codeyn loo baahan yahay 50% plus 1 oo ah koow horta inaynu rasayno maanta waxaa loo codeyn doonaa 3 arrimood oo muhiim ah kuwaas oo kala ah sidaynu hadda hore idinku sheegay koow 3 qodob oo dib loogu soo celiyay cutubkii labaad laba ku noqoshada qodobo ka mid ah cutubkii afraad koow 3 qodob oo ka mid ah 3 qodob oo lagu soo celiyay cutubka labaad ku noqoshada qodobo ka mid ah cutubkii afraad waa 49 54 waa kuwii wax ka bedelayay doorashada madaxweynaha iyo 3 ansixinta cutubada shanaad ilaa 15aad kuwaasoo qaab dhismoodkooda si faahfaahsan hadda ka hor aan idiin sheegayay mudane gudoomiye mudanayaal waxaan rajaynayaa in mudanayaashu ay si mas'uuliyad leh uga gutaan waajibaadkooda dastuuriga ah si geedi socodka dhamaystirka dastuurka dalka uu sii socdo ugu socdo si nidaamsan oo waafaqsan habraaca sharci ee u yaala baarlamaanka mudane gudoomiye faahfaahinta aan siiyay xildhibaanada labada gole waxaan rabaa inay sidaa habsamida leh inoogu qabsoonto shaqadu la wareeg mikrofoonka aad iyo aad baa u mahadsantihiin